tan ay dadka fahmi laayeen waa midaas marka waxaan rabaa inaan dhaho shakhsiyaad waxaa jiro la rabay in la dilo in taasaan rabaa inaan ku xiro in Soomaali ogaato mana raba inaan ka xishoodo inaan arrintaas sheego waxaa la rabaa shakhsiyaadka madaxda noo ah oo maanta goboleedyada joogo arrintan agreement ayay ka mid tahay in Axmed Madow waxaa la rabaa iyo Cabdiweli Gaas in dambiilayaal laga dhigo waxaa jiro safiirka noo fadhiyo New York oo Abuukar Baalla la dhaho wuxuu haddadan ka shaqeeyaa in la raadiyo la helo shakhsiyaad ah oo UN-ka joogo sida loo cambaareyn lahaa nimankan si tribunal ka dhigti dad looga dhigo example labada nin ay ku socotana waa Axmed Madow iyo ninka la yiraahdo Cabdiweli Gaas si fiican hal dhegeysta Soomaaliyeed labada shakhsi la rabana in la dilo Sharif Xasan in la dilaa la rabaa Xaafna in la dilaa la rabaa shakhsiga kale oo la rabo in laga qaado meesha aan la rabin in la dilo waa Awaare Hirshabelle asaga waxaa la rabaa maadaama uu NGO ka soo jeeday in hadda waxaa lagu maqan yahay ceybihiisa dhan NGO wuxuu sameynayo dhan iyo lacagihii uu ka qaatay meesha iyo inta guri uu ku leeyahay Nairobi nin walba qorshe u degan shacbiga Soomaaliyeed taas inay fahmaan waa ummadda Soomaaliyeed dhibaato ku soo socoto qabiilan ka soo baxnay dhibaatan ka soo baxnay dan nooguma wada jirto inaan isdil inta in soo dili karno ay soo dilnay waxa kaliya aan ummadda Soomaaliyeed caawan u sheegaya wax kala ma war xukunkan aan xoojino war xukuumadaha aan leenahay regions aan xoojino war aan ismaqalno war dadkeena wax garanayo oo qurbaha joogo oo wax garadka ah ha loo yeero war xisaabtanka hal xoojiyo xisaabtanka maaha in dawladnimada lagu ridayo xisaabtanka waa caafimaad waa mid cid shakhsi walba u baahan wadamada aad ku wada noolahay dhan waa la wada xisaabtama maanta wadanka aan ku noolahay Canada prime minister waxa ka Trudeau aad baa loo jecel yahay laakiin ma jirto habeenkii maalin walba xumaantiisa la raadiyaa qaladaadkiisa marka ummadda Soomaaliyeed inay faantaa waa in laga gaashamaan shakhsiyaadkaas la rabay in la dilo oo xukuumadda loo sameeyo iyo safiirka noo joogo New York iyo shakhsiyaad waxa jiro Nairobi ku nool oo Mareyxana oo ganacsatayaal ah oo lacag loo dhiibay oo ka shaqeynaya Axmed Madow sida in dagaal laga rido Jubbaland si Mareyxana iyo Axmed Madow isku dhacaan Axmed Madow laga dhigo nin waxa lagu kiciyay Jareerti waxa lagu kiciyay Sheekhashi waxa lagu kiciyay Mareyxankii siyaasadda meesha ka socoto Axmed Madow hadii la rabo in meesha laga qaado siyaabo badan looga qaadi karaa laakiin saan in looga qaado aan waxaan u arkaa wax qaldan shakhsiyaadkaas Mareyxanka lacagaha loo dhiibay oo farmaajo u dhiibay iyo nimanka cadaan ka shaqeeyna shakhsiyaadkaas magacyadooda waa haya reportkii ku soo bixi doonta marka Soomaaliya kii qabiil u jiran iyo kii xaq u jiran hadda Soomaaliya hadii kala bixisa laakiin waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaya Soomaaliya cadaalad ka shaqeeya intaad awood leedahay wadankan gacanteenu ka baxay hebel aan nacbahay iyo qabiilkaas aan ahay Soomaaliya meel waa ku gaari weysay dhul weyn aan leenahay dhulkeena waa qani waana loo tashtay aan dib u fiirino dhibaatadan haysato aan xisaabtanno waxaan marka aan rabaa hadda inaan ku imaado xukuumadda jirto maxay damacsan tahay maxay kaga duwan tahay intaasoo xaaladoo dowladihii ka horeeyay oo asagana ninka hadda maanta madaxweynaha uu marna prime minister ka soo noqdo muxuu kaga duwan yahay muxuu la yimid muxuu damacsan yahay maxaa socdo ummadana maxay og tahay xasan sheekh wuxuu qabtay waan ka hadalnay qaladaadkiisa horaan uga soo hadlay laakiin waxaan ku soo gabagabeynayaa in uu goboladan abuuray maanta waxaan aaminsanahay aan ogahay aan la socdo on reportkayna ku soo saari doonaa report soo socdo 2012 ilaa hadda campaign inuu socday oo farmaajo la keenay xukunkan loo waday interruption waxaa sameeyay 2012 waxay keeneen xasan sheekh international community nimanka xalana ah marka campaignka socday muxuu ahaa 12 xasan sheekh la keenay qarsoodi meehan waxa watay ingiriiska soo ku yimid xasan sheekh waa yimid afar sano xukunka ka taliyay wuxuu qaribay wuxuu wanaajiyay waan ognahay goboladii iyo meeshii wadanka soo gaarsiiyeen waan ognahay waan ka hadalnay corruptionkiisa horaan uga soo hadlay waxaan hadda ku noqonaya ma jirto laakiin goboladii aan raba hadda inaan xoojiyo iyo istiraatiijiyada maanta socoto xukuumadan markay xasan sheekh intuu hadda madaxweynaha ahaa farmaajo waxa looga yeeray Nairobi farmaajo wuxuu ahaa campaign ayaa socday campaignka waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego waxa laga saxiixay non disclosure agreement wax la yiraahdo ummadda Soomaaliyeed ogeen campaignkiyo socdo xukuumad jirto madaxweynaha xasan sheekh maxamuud uu yahay markii tartanku socday
waxyaabaha ummadda Soomaaliyeed xaalana oo team ah ay wateen ay shakhsiyaadkay wateen iyo habkay wax u wateen waxaa ka mid ahaa in farmaajo la keeno in farmaajo laga saxiixdo wax la yiraahdo non disclosure agreement maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah in farmaajo lagala shaqeeyo xildhibaano dhalinyaro ah in baarlamaanka lagu soo badiyo waxaa kaloo ka mid ahaa in hadduu xukunka ku guulaysto khayre in la keeno in laga ilaaliyo habargedir abgaal inay prime minister ka noqdaan waa non disclosure agreements ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ah dhalinyaro yaryaroo wasiiro ah in lagu abuuro oo laga ilaaliyo dad wax garanayo ummaddaas in madax looga dhigo waxaa kaloo ka mid ah in la abuuro media oo budgetna loo sameeyo oo ay ka mid yihiin tviyada oo ay ka mid yihiin social media sida twitterado kale sida maxaa lahaa facebookyado kale iyo raadiyaasha in la helo dad badan oo budget loo sameeyo si ay uga maxaa lahaa uga qayb galaan propaganda la rabo in la sameeyo maxaa kaloo sina loogu isticmaalo madaxdii ka horeysay si loo propaganda loogu isticmaalo loo baabi'iyo waxaa kaloo non disclosure agreement ka mid ah Amazon in la baabi'iyo oo weji kale loo sameeyo waxaa kaloo ka mid ahaa in calanka Soomaaliyeed la bedelo calanka Soomaaliyeed in la bedelo intaas wax ayaa non disclosure agreement uu ka mid yahay maxaa loo ballan qaaday marka hadduu intaas uu sameeyo oo farmaajo uu howlgeliyo waxaa loo ballan qaadaa idin sheegaya Soomaaliyeed in la baabi'iyo regional authority oo intaasoo sano laga soo shaqeynay si ay Soomaali u hesho grassroots oo gobol walba Soomaali u dhismo oo loo helo xal si ay Soomaali mar dambe aysan iskugu dhicin in la baabi'iyo midaas waxa kaloo loo ballan qaaday hawiye business community oo xamar ah bakaraha in la baabi'iyo waxa kaloo loo ballan qaaday in loo abuuro tribunal system oo ummadda Soomaaliyeed oo lagu xakameeyo madaxda qaarkoodna hadhubta laga dhigay dambiilayaal si loo keeno waxa looga ballan qaaday macruusha laga dhigi doonaa ma Nairobi baa laga dhigaya labadaas meel ayaa la isku hayaa oo loogu ballan qaaday waxa kaloo laga shaqeeyo ka mid ahaa in budget loo qoondeeyo nimankaas tribunalka shakhsiyaadkaas la xakameyn doono in budgetkooda oo la hayo oo meel loo dhigo oo shakhsiyaad ay asaga ku kalsoon yahay oo Nairobi fadhiyo oona shakhsiyaad marixaan ah in budgetkaas loo dhiibo si aan dadka aysan u fahmin waxaan rabaa marka inay Soomaalida fahanto waxa kaloo jiro in World Bank iyo IMF-tana ay ka shaqeeyaan in propaganda loo sameeyo oo la yiraahdo maamul wanaag ayaa jiro Soomaaliya waxaan gaarsiinaynaa heer lacagaha lagu leeyahay laga cafiyo marka waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed Cabdiwaxid inuu sheego wamida maxaa tala ah marka inta xukuumadoodan ka soo tilmaamay khaladaadka soo dhacay waxay ku kala doonayeen istiraatiijiyadooda waad fahanteen maxaa maanta ummadda Soomaaliyeed xal u ah tan u ah aniga marka waxay la tahay ummadda Soomaaliyeed u soo bandhigaya in la daayo regional authority-ga shacbiga Soomaaliyeed lagu mashquulinayo demokrasiyada aanan meel jirin in la fahmo xukuumaddan 3 sano jirto qorshe dheer ayay wadataa dagaalo badan ayaa iyo qorshe dheer oo aanan ummadda Soomaaliyeed isku diri joono ayay ku socotaa maxaa tala waxa tala aniga in la sameeyo nimankan regional authority-ga ma aha niman wanaagsan niman qariban waa wanaag ummadda Soomaaliyeed uma soo wadaan laakiin in 3 sano uu farmaajo madaxweyne yahay in shakhsiyaadkaas la daayo oo xukunkooda loo dheereeyo Axmed Madoobe xukunka loo dheereeyo 3 sano intuu farmaajo joogo Cabdiweli Gaas loo dheereeyo awaare loo dheereeyo ninka la yiraahdo maxaa la Shariif Xasan loo dheereeyo iyo xaaf aniga taasan maxaa keenay arinta hadda socoto waxa waaye baarlamaan waddanka ma jiro oo federaal ah garsoor ma jiro waddanka check and balance wax la yiraahdo check and balance kaliya aan maanta haysano waa maamul goboleedyadaas oo qariban haddii laga takhaluso oo shakhsiyaad cusub la keensado xukuumaddaanana oo intaasoo qorshe loo soo dejiyo oo lagu hagaayo oo ay ka socoto shakhsiyaad caddaan ah oo u fadhiyo meesha la yiraahdo xalane
dhibaatada imaan doonta Soomaalida kama aysan fikirin dhibaato weyn ayaa imaanayso taas waa halka kale aan rabo inaan ummadda aan u sheego waxa waaye nimankan regional authority waa inay ka shaqeeyaan mid waa inay guddiyo sameeyaan Puntland waa inay 3 qof oo guddi ay soo saartaa galmudug waa inay 3 qof keenaan oo aqoon-yahanina oo aanan ku base garaysanayn 4.5 Hirshabelle koonfur galbeed iyo Jubbaland 15 qof waa inay keenaan aqoon-yahanina 15 qofna waa inay ka shaqeeyaan la raadiyaa farmaajo lagula xisaabtamaa la dhahaa non-disclosure agreement aan la gashay international community waa ina ummadda Soomaaliyeed usoo bandhigtaa macalinka Soomaaliyeed rabta inaad ka taqalusid ma inta wax aan soo sheegay inaad cadaysid maxaad ku iibsatay maxaad damacsan tahay in arintaas la baaro guddi loo sameeyo guddiyadaasna waxaa ka sii weyn in dadka aqoon-yahaniinta Soomaalida oo meel walba joogo hadda London wala wax yar baan rabaa inaan idin sheego Ingiriisku waxay wadaan maalin hore London baad degan tahay Cabdiwaaxido waxaa jira wiilal ilmo yar yar oo la yiraahdo maxaa lahaa anti tribal movement waa dad aad u wanaagsan qiiro ku jirto wadanka jecel la dagaalamayo tribalismka 10 Downing Street looga yeeray laakiin aqoon badan ummadda Soomaaliyeed aan u lahayn waxaa London jooga maanta sida ummadda Soomaaliyeed loola dagaalama ku sheegay waxaa wadanka joogo Turunji sub magacyo badan oo Soomaaliyeed waxaa joogo London oo maanta oo aqoonyahan ah oo Soomaalida u baahan tahay inay fahanto waxaa joogo Maxamed Ciise Turunji waxaa London ku joogto meesha la yiraahdo Mareykanka Raqiya Xaji Ducaale oo qof heer sare Soomaaliya meel ka gaartay waxaa jirto Cudureyji waxaa jirto Faadumo Isaaq Bixi waxaa jiro Professor Maxamed Xasan Muudey dad badan oo Soomaali oo meelo badan ku kala nool oo institutional memory oo loo baahan yahay khibradooda in loo yeero la yiraahdo war wadankan idinka ka soo qeeyay Maxamed Cabdi Faarax joogo oo professor jaamacadda haye ummadan Soomaaliyeed dhinac walba social ka dil rabo in wax laga qabto policy Soomaaliya hadii la rabo in wax laga qabto hadii la rabo maxaa lahaa economical in wax laga qabto intaas oo qof Soomaali khabiir ah oo weli nool ayaa joog cid ku tashanayso oo raadinayso inay dadkaas u yeeraan ee la tashan ma jirto maalin walba ummad Soomaaliyeed waxa lagu wareerinayaa ilmo yar yar oo wadanka aan waxba ka fahamsanayn ayaa la rabaa wadanka marka waxaan u soo socdo waxa waa in guddiyo la sameeyaa waa in la raadiyaa waxa oo dawladda oo shakhsi walba markuu meesha yimaado go'aanka goonidu asaga qaadanayo uu dad gooni kula heshiinayo ummadda Soomaaliyeed aan ogeyn waa in arintaas wax laga qabtaa waa in la raadiyaa marka guddiyadan waxay anfacayaan dadka Soomaaliyeed wax galka aqoon-yahaniinta oo banaanka ku nool in ummadda Soomaaliyeed loogu yaro la yiraahdo war guddiyo waa in la sameeyo waa in la raadiyaa xalka ummadda Soomaaliyeed shakhsi walbana xukuumaddan yimaadana dhaqan wuxuu u yeeshay inuu sharci asaga jeebka kala soo baxo oo dad ajnabi ah la heshiiyo qorshuhu rabana wadanka lagu wado iyo qorsho ajnabi ah marka taas waa inaan ka xorownaa waxaan kaloo rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego aqli maha xukuumad walba jirto sanad walba inuu prime minister jiro la ceeriyo baarlamaanka waxaan kula talinayaa xukuumaddan inay jirto farmaajo waa inuu xukuumaddiisa dhamaystaa 3 sano ra'iisul wasaare khayr waa inuu dhamaystaa 3 sano waxaan u baahannahay system inuu dhismo isqabsado systemka legacy-gay waxay abuuraan waxay sameeyaan iyo waxay la imaan doonaan meeshan san bari ka cabiran doonaan dhigana Cabdullaahi wuxuu ka tagay waan ognahay wanaagu ka tagay khalaad ku sameeyay wanaagu ka tagay waan ognahay Cabdiqaasim khalaad ku sameeyay wanaagu ka tagay waan ognahay Sheekh Shariif sidoo kale xukuumaddan waa inay jirtaa dhamaysataa waqtigeeda si aan u barita assessment fiican ugu sameynaa waxaana waa sameeyeen waxaana way ku qaldameen mooshin dambana aan wadanka la keenin xukuumaddan jirto regional authority-gana faraha laga qaado ayaga jira ee wada dhameystaan ilaa 2020 ay wada dhameystaan oo loo helo marka xal sida loo abuuri lahaa maamul wanaag oo ishaysto gobolada ka soo qaadba gobol marka fiiriso Jubbaland aan example u soo qaato waxay qabtaa 15 ilaa 16 district isma haysato district maxaa lahaa division-ki location-ki all the way to sub location isma haysto marka 2020 haddii aan saan ku socono maalin walba shakhsi aan bedelno system ma noo dhismaaya haddaan Soomaalinahay ma dhismaayo marka aniga waxaan ku talinayaa jijiidkan in laga baxo xukuumaddan faraha laga qaado mooshinkan la joojiyo ayagana ay dhibaatada
ay regionska ay ku hayaan ay dhaafaan regionskan inay guddiyo abuuraan oo lala xisaabtamo dowladda oo la weydiiyo agreementka ay la galeen international community in banaanka lasoo saaro cabdiwaxid waa tahay aad buu u mahadsan yahay cabdirasaaq fartaag oo ahaa ka shaqaynaya xafiiska ra-iisul wasaaraha qaybta maaliyadda 2009 ilaa 2011 mar kale waa showgii gaar haye oo idinkaga imaanaya stuudiyahayaga magaalada london waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulwaaxid cabdullahi khaliif waxaa isku soo dubariday ustaad muxiyadiin diryo nuur wadani oo kanada jooga gaar haye waa gole gacalka soomaaliyeed gees kasta oo ay adduunka ka joogaan u gudboon yihiin dowladda guna kama qaadano mucaaradkana gacansaar lama lihin cid gooni ahna kuma xirin fikirka waa lagu kala gedsanaan karaa danta guud waa mid dadku waxay leeyihiin break hana la siiyo waaba soo gebagabaynaynaa saad aragtaan arrintu meel xun bay ka degaysaa arrintan hadda uu ka sheekaya aqoonyahanku anugu dadka wax ku qorqoraan ahaan jiray internetka waagii xataa imbagati ka hor macno weyn bay samaynaysaa arrintan weliba qodobkan ah non disclosure agreement iyo wuxuu sheegay haddaan bahaynaa saxaafadda iyo dhalinyarada haddeeray qolkan ku jiraan ayagoo xataa qabiilkiisa aqoon cabdirasaaq bay qabiilo kale u saarayaan waana waxyaalaha ka mid ah qof qurba jooga oo dhalinyara oo iskuul bartay oo waxay ka hadlayaan aan la aqoon wuxuu hadda sheegaya waa wada haynaa marka arrimahan oo dhan baa u baahan marka waxay noqonaysaa habeen kale inaan ku cilaaminay noqonaysaa arrintan arrin laga dhargaya ma ahan warbixintan oo kale horey nooma soo marin waa arrin u baahan in aad loo lafa guro marka waxaan isku dayaynaa weydiinayaa dadku break bay dalbanayaan cabdirasaaq jamcahoo kale ka waran waqtigaan kale maalinta jamcaha sabti soo gelayso dadka soomaaliya taraawiix bay soo tukanaya arrintan lagama dhammaanayo waxaad sheegaysa khayra laga bilaabo saxaafadan hadda dacayad bay iska wada daymaha la cafinayaa la iska leeyahay oo dadkiiba la waalaya waxaan jirinba qoladii hadda ka hortagga tribalism akhbaar badan baan ka hayaa iyaga dhib ma leh dhalinyaro iska ah oo waa arrin dib heshiin bay ahaan lahayd qabiil meeshay qabiil ka hadli lahaayeen maalintay la sameeyey oo dadkay la hadleen turki bay tageenba qaarkood iyo down street marka waxaan wax u baahan tahay lafagurid marka dadweynahan weydiinaynaa arrinta arrin caadi maaha ka warrama jamcaha dadweynuhu kuma soo koobi karna hadda 20 daqiiqo kale waa haysanaa waa sii weydiin karnaa laakiin aniga waxay kula ficlaan lahayd arrintan waxay u baahan tahay waqti dheer oo kale maxaa yeelay wuxuu aqoonyahanku sheegayo waaba haynaaba waana arrin u baahan odoros marka dhalinyaradan iska qabiil aan jirin haddaa run rabtaa ninkan farmaajo isku cid yihiin marka waxaydan ka warqabin lama galo lama mala awaalo waxa waa la sugaa see u taageeraysaan dowlad haddaa saan tihiinba iska caydina ka soo horreysa iyo been abuurka iyo waxaydan oqoyn aad ka hadlaysaan marka cabdirasaaq bal ku soo noqo horta dadweynaha waxay ku weydiinayaan mawduuc ka baxsan xoogaa arrintii badda maadaama cabdiraxmaan cabdishakuur markaas ahaa wasiirka qorsheynta uu ahaa adigana meelo aad isugu timaadeen hadda sida sacuudiga oo kale arrintaas maxaa ka jira marka arrintaas aniga cabdiraxmaan cabdishakuur waxaa igu horeysa aan barto intaanan waddanka gelin abril 2009 aniga mayaan galay waddanka waxaan maalin buu isoo wacay aniga isaga aqoon umaanan lahayn waa markuu saxiixayay badda uu nairobi u yimid uu badda saxiixayay hotel wuxuu kusoo degay hilton qof buu ii soo diray ina xasan abshir oo isoo wacay wuxuu yidhi waxaa ku rabay inuu ku arko wasiirka cabdiraxmaan cabdishakuur hotelkaasuu degan yahay telefoonkiisa waa kanaa maalintaasuu rabaa inuu ku arko inaan ku geeyaan rabaa inaad soo baxdo ina xasan abshir yar la yirahdo waayahan yaray waa u tagay anigaase marka rag kale wuxuu yidhi raalli naga noqod aniga isagaan qolka fadhinay wax kale imuusan weydin wuxuu igu yidhi aniga waxaan tegay botswana waa markii ugu horreysaan arkayay botswanaan tegay botswana waxaan magacaaga ka soo maqlay dad badan oo Soomaaliyeed meesha jooga inaad u timid meesha consultancy waan ogaa dadkaas waxay ii sheegeen waxay dhaheen inta qof Soomaaliya meeshan yimid hal nin ayaan waxaan aragnay oo aan qabiil ku shaqeynay la yiraahdo fartaag magacaaga horta saasaan u haystaa saasaan kugu yartay inaan ku barto markaasuu saxiix aniga shakhsiyan aqoon uma lihi badda arrimaha badda shakhsi ka hadli karana ma ihi laakiin waa inuu asaga saxiixay habku u saxiixayna waan la socdaa aniga waxaan qabaa waa la geliyay asaga runtii marka xaqa laga hadlayo kamuusan fiirsan waa shakhsi qab ku jira
oo qabiilkana aad ula wen yahay jaahilnimo badanna hayso marka waa looga faa'iidaystay waa la geliyey inuu saxiixo rag khibraa hele inuu saxiixana shaki kuma jiro arrintaas waa arrin jirto taasna waa mid asaga mar walba meel walba u tagana daba soconayso runtii waana ka xumahay in taariikhdiisa saas ku dhammaato ninka odayga waa tahay su'aalaha aan u hayno waqti naguma saamaxay sababta waxa yeele arrintu waa xasaasi weeye maadaama aan wax qori jirin waa garanaya waa kala aqaanaa akhbaarta saxda ah iyo akhbaarta dadku u baahan yahay runtuna dadka kama naxiso tusaale ayna siinayaa cabdishaaq waan la joogaya dib baan u dhigana cabdishaaq waxaan ka dhiganaynaa dadkii baan weli ka aruurinaya akhbaartooda dadku runta ma jecla qofka waxgaradka ahna ama hogaamiye noqon karana akhbaarta uu ka faa'iidaystaa tusaale ayna siinayaa maadaama bisha ramadaan lagu jiro dagaalkii beder oo qurayshtii caabudu jirtay sanamyada iyo nabigii sallallahu alayhi wasallam oo safar awr u socday oo dagaal u socon mar la isku soo baxay waxaa dhacday saxaabadii akhyaarta ahayd sida cali radiyallahu anhu baa waxaa loo diray isagu wuxuu qaabilsanaa zubayr iyo inay kumaandoos oo kale ahaayeen hortagaan laba wiil oo waxay soo qabteen quraysh biyo u soo doontay mucaskarkii baa la keenay nabigii sallallahu alayhi wasallam oo tukanayay bay marka interrogation bay ku sameeyeen waxbay weydiin waa juqajuqayeen wiilashii waxay dhaheen quraysh baan ka nimid saxaabadii waa garaaceen wiilashii markay runta sheegeen waa la garaacay marka been bay markii dambe sheegeen maxaa yeelay saxaabadan dagaal uma socon quraysh oo ciidankeeda waa tan waxay dadku iska jecel yihiin information khalad in la baxsho ama arrintu sahlanaato maxaa dhacay nebigu markuu salaadu dhammaystay allahu akbar buu ku yidhi dhegaysta baan u dhegaysta wuxuu ku yidhi in sadaqaakum darabtumuhuma war hadday wiilashu idin run sheegaan ma garaacaysaan wain kadabaakum taraktumuhuma hadday been sheegaanna ma iska daynaysaan wuxuu yidhi wallahi wiilashu quraysh bay ka yimaadeen u fiirso si uga faa'iidaystay markaa nebigu hogaamiyaha u dambeeya fiiri yes labadii ciidanka muslimiin diyaar ma ahan awr bay usoo tageen qalab badan ma wataan ciidamadii waa kasoo tageen khatar baa timid run baa timid runta waa la wajahaa lagama lexlexdo nebigu marka wuxuu sameeyey saddex hogaamiyu ahaa wiilashii buu u yeeray wuxuu yidhi wiilashaan ciidani kama warqabaan wuxuu yidhi ciidanku waa meeqa quraysh ma naqaan bay dhaheen wiilashu shaqadoodu waxay ahayd biyo dhaamis iyo cunto karis bay ahayd wuxuu yidhi meeqa geelay qashaan waxay dhaheen 9 ama 10 maalin walba nebigu wuxuu yidhi ciidanka naga soo horjeeda waa 900 ilaa 1000 waa sidii bay noqotay u fiirso nebigu sallallahu alayhi wasallam information waa ka faa'iidaystay arrintan walaalkeen hayo qofkii wax garanaya wax qori jiray waa arrin aad u qiimo badan oo u baahan in laga faa'iidaysto qoliyaha meelahan ku caytamaya oo raba inay been noqoto waxay la mid yihiin saxaabada waxay sameeyeen waana waxa lagu kala ogaado qofka hogaamiyaha saxda ah qofka dadka u hadli kara qofka dadka wacyi gelin kara akhbaaraha uu kala yaqaanaa marka waxaan idin xuleynaa yani waxaan su'aalahan dib ugu dhigaynaa jamcaha maalinta jamcaha sabti soo gelisa waqtigan oo kale wuxuu sheegay cabdishaaq waa hayaa tusaale ayna siinayaa maanta waxaan soo gelinay war murtiyeedkii maanta markuu dhici rabay sawiradii baan soo gelinay gaar hayo oo leenahay waxaan mar dhow la bilaabayaa war murtiyeedkii dad badan baa waxay soo qoreen waxay dhaheen nama khusaysa shuqul kuma lihin halkaa waxaad garanaysaa war nimankan waa la diidi karaa laakiin nimanku soomaaliya nimankii xukumo weeye 90% bay soomaaliya xukumaan waa dhihi kartaa waa khaldan yihiin waa ka soo horjeedaa laakiin arrin soomaali looga hadlayo oo intaasoo qof isugu timid haddaad tiraahdo muhiim ma ahaan waa waali weeye waana wuxuu sheegayo dadkan saxaafadan la sameeyey beebeenta dhalinyaro qaar baa aniga oo weyn dhalinyaro maaha dadka qaar laakiin dhalinyaro u badan yihiin marka idinkama yeelayno idinkuma sii daynayno gaar hay waxaan u samaynay waaba saas waxaan rabaa gaar hay raallohow gaar haye oo aan rabaa ummadda inaan u sheego fiiri waa runta dadka tarawixi bay aadayan ummadda بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رمضان مبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. sidoo kale nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man saama ramadaana iimaana wa ihtisaaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbi
abu hurayra asna wuxuu wariyey radiyallahu anhu inuu nabiga ilaahay yiri qaala allahu kullu camal ibna aadama lahu ila siyam fa innahu lii wa ana ajzi bih ilaahay baa mahadlana gaarsiiyey ramadaan intii saacad uga harsan yihiinna iyagana allah gaarsiiyo noona sahlo inaan la nimaadno soon salaad sadaqo iyo khayraad badan laguna daro kuwa dunuubta u dambi dhaafo ramadaankan lagana xoreeyo cadaabka aamin aamin daawadayaal waa showgi gaar haya oo idinkaga imaanaya stuudiyaha ee magaalada london waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdulwaaxid khaliif waxaa isku soo dubriday al-ustaad muxiyadiin jeriya nuur wadani oo kanada jooga waa barnaamijkan waa muxaadaro toos ah oo ku saabsan xogo muhiim ah oo ku xeeran waa kuma xaakinka runta ee na xukuma xarunta nalaka xukuma waa hatee waxaana soo jeedinaya aqoon-yahan cabdirasaaq fartaag oo ahaa madax ka ahaa xafiiska ra'iisul wasaaraha qaybta maaliyadda dadweynaha sanadihii 2009 ilaa 2011 haddana wuxuu leeyahay hay'adda cilmi baaris iyo la talin ah oo la dhaho fartaag research and consulting muxaadarada kadib waxaan isku daynaa inaan su'aal ka weydiino hadba waxa aan isdhaxano waxay u baahan yihiin iftiimin soo dhawow cabdirasaaq cabdiwaaxid khaliif waad mahadsan tahay ramadaan kariim iyo dadka sharafta loo dhageysanayo ramadaan kariim aad baa u mahadsan tahay daawadayaal gaar haye waa gole ay u gudboon yihiin gacalka soomaaliyeed gees kasta oo ay adduunka joogaan dowladda gudna kama qaadano gacan saarra lama lihin mucaaradka cid gooni ahna uma adeegno geeska afrika qoomiyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan baanu garab taagannahay fikirka waa lagu kala gedisnaan karaa laakiin danta guud waa mid gabagabada hadalku gooriya ayaan waa sidii gujiis allaha u naxariistay u lahaa aan ku garownaya gaar hayow geyiga ilaali saan idinka balqaadnay waxaan idiin keennaa labeentii soomaalida caawa waxaana hor fadhiya aqoon-yahan ka mid ah dadka ugu badsha arrimaha musuq maasuqa iyo khiyaanada iyo isdabamarinta waddanka lagu wado muddo badanna xafiisyada ugu sarreeya waddanka joogay marka sheergareeya isla qaybsada mar kale waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak cabdirasaaq muxaadaradii halkaas nooga bilow waa mahadsan tahay cabdiwaaxid marka ugu horreysa intaan hadalka bilaaban waxaan rabaa inaan anfifto waxaan rabaa dhegeystayaasha sharafta leh inay fahmaan mid aniga ma siyaasadeynayo arrintan aan hadda rabo inaan ka hadlo cid aan ku weerarayna ma jirto laakiin dadka dhegeysanaya waxaan rabaa inaan u sheego haddii aad si caafimaad ku jirtid dhibaatada waddankaaga haysato inaad dhegeysatid programkan waa programkaaga oo ahayd inaad dhegeysatid haddii ay ku dhibayso aad waxyaaba qaarkood dhibaato ka dhex arkaysidna marka aan xaqiiqda qaarkood aan tilmaamo taasna waxaan idinkugu talagalay xumaan maaha waa arrin jirto oo aniga aan soo arkay ka soo shaqeeyey oo aan u baahnaa ummadda soomaaliyeed inay fahanto midda kale waxaan rabaa ummadda inaan u sheego wanaag waxaa laga yaabaa programkan hadda aan ka hadli doono dad hal qabiil inay u bataan wanaag sameeyey waxaan rabaa dadka meeshaan dhegeysanaya inay fahmaan aniga 4.5 wanaaga ma gelinayay xumaantana 4.5 ma gelinaya dhaqan waayahan dambe waxaa soo xoogaysa soomaaliya in haddii shakhsi aad wanaag ku tilmaamtid ama wax uu sameeyey wanaaga dad kale inay leeyihiin maxaa loo tilmaami waayo dadkii kale marka aniga saas uma shaqeeyo wanaaga qofkii kansadaa wanaaga leh xumaanna qofkii kansadaa xumaanta leh taas waa mid waana ku mahadsan yihiin marka waxaan rabaa inay dadka saas fahmaan mid markaan ka soo gudubno middaas oon afeefta ah su'aalo badan ayaa jirtay aniga marka ugu horreysa wax yaraan rabaa inay idiin taabto waxaan arrimahan waayahan dambe aan ka shaqayn jiray markii aad sanadkii 2000 ayaan dhowr jeer waxyaabo badan su'aalo badan aan isweydiin jiray oo ka mid ahaa maxaa wadamada afrikaanka markaas soomaaliya interest kuma aanan ahayn maxaa wadamada afrikaanka ah ee mar walba arrintooda u taagan tahay dhibaatadooda marka 2000 markay ahayd waxaan aaday waddanka la yiraahdo Ethiopia anoo rabo in aan qoro buuggaasna waxaan rabo inaan ku sheego titleka markaas aan u baxsaday waxa waa African Governance Stagnancy How African Public Servants, Proxy Government Employees, Traditional Leaders and Entrepreneurial Societies Mentality Hinder the possibility of a meaningful progress waxaan mar walba interest ku ahaa aniga shakhsiyan inaan fahmo
dhibaatada oo mar walba ummadda Soomaaliyeed ama Afrikaanka ee dhaqan ka dhigteen leeyihiin wax walba waxa haleeyo ee madaxda marka waxaan rabaa inaan fahmo roolka ay ku leeyihiin traditional leaderska public servants civil servants Afrikaanka ah dadka proxy government employees loo yaro ah waa takhaatiirta waa nurseska waa dadka engineerada ah dadkaas waxa la proxy government employees iyo ganacsatayaasha mentalitygooda ma dhibaato u keenaa xukuumadaha jiro mise dhibaatadii halkii ka socotaa anoo arrintaas ku mashquulsan ayaan halkan ka tegay North America waxaan ugu horreysay aan ka bilaabay Ethiopia waxaan watay notebook yar marka waxaan interest ku ahaa inaan raadiyo informal businesska si u shaqeeyaan maskaxdooda mentalitygooda habkay wax u raadiyaan habkay lacagta lacagta u sameeyaan managementkay leeyihiin human resource capacity oo meesha intuu gaarsiisan yahay 2 bilood aan Addis Ababa joogay waan ka tegay Uganda aan tegay hal sano aan joogay Uganda waxaan ku noolaa magaalo la yiraahdo Mbarara 3 bilood ugu horreysay waxaan joogay Kampala Mbarara waa magaalada madaxweynaha Museveni ka yimid meeshaasaan macallin ka noqday anoo baarayo maalin walba su'aalahaas oon rabay inaan fahmo hal sano markaan meesha ka shaqeeyay waxaan u gudbay meesha la yiraahdo Rwanda waxaan ka dhigay jaamacad la yiraahdo Kigali Institute Science Technology and Management oo Paul Kagame sameeyay waxaan ahaa macallin entrepreneurship dhigo oo galaaska saddexaad iyadana meeshaas waxay ii masaamaxday in aan research aan damacsanaa oo intaasoo aan ka fikiraa inaan wax ka qoro aan sii wato marka Great Lake Regionskaas waxaan ka soo shaqeeyay 4 sano waan ka soo noqday Canada ku soo noqday markaan Canada ku soo noqday ayaan waxaan bilaabay shaqo inaan raadsado oo galabtii ah subaxdii saan wixii mucaamalaadka aan soo aruursanaa inaan wax ka qoro aan rabo markaan dhameeyay 2007 ayaan waxaan aaday consultancy aan u aaday Botswana wadanka la yiraahdo waan bil ka soo shaqeeyay waan soo noqday marka 2008 ayaan Nairobi tagay arrintan u soo socdo waa midaan Nairobi markaan tagay 2008 November 2008 wato Abdullahi Yusuf Allah naxariisto November iyo December iscasilay madaxweyneyni Allah naxariisto waa tii dawladii lagu sameeyay meesha la yiraahdo Djibouti nasiib Umar Abdulrashid Al Shamaaka ay soo wacay Iirani wada la shaqeynaysaa aniga dan kama lahayn Soomaaliya inaan galo sidii aan wadan ku galay waxaan xamar galay May 14th markaan galay marka isla markii warkan ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan soo gudbiyo xukuumadihii meesha soo jiray waxay kala dhaxleen say u wada shaqeeyeen sida ayaga la iskugu dirayay dhibaatada caqabada mar walba ayaga hortaagneed caqabada ayaga midday ayaga isku hayeen midda lagu hayay iyo waxaan aniga ka soo bartay aan ummadda soo gudbinaya dad badan waxa laga yaabaa waxyaabo badan inay fahamsan yihiin oo aanan meeshi jirin marka maanta waxaan aaminsanahay dad badan oo Soomaali inay wax fahmi doonaan kuwa si caafimaad ku jirta arrintan u fiirin doono waxaan bartay markaan meeshi galay Umar Abdulrashid markaas prime minister ka madaxweynaha waxa Sheekh Shariif Sheekh Ahmed wasiirka maaliyadda waxa ahaa Shariif Xasan gudoomiyaha baarlamaanka waxa ahaa Aadan Madoowe Sheekh Madoowe Hebel Madoowe waxa dhacday marka Umar Abdulrashid isla markii wuxuu abuuray xafiis la yiraahdo Public Finance Management Unit oo arrimahan aniga aan baarayay shaqo ku lahayd waxaan la shaqeynayay wasaaradda maaliyadda Central Bank of Somalia xisaabiyaha guud hanti dhowrka guud National Civil Service Commission-ka wasaaradda shaqada wasaaradda qorsheynta iyo waxaan la shaqeynayay markaas waxaa loogu yeerayay Financial Standing Committee of the Parliament oo committee kamid ah hadda waxay ugu yeeraan Budget and Finance Committee of the Parliament oo guddiga ayagana oo shaqo ku leh arrimahan oversight-ka ah arrintii markii aan meeshaas shaqadaas la ii dhiibay aan bilaabay waxaan marka rabaa inaan Soomaalida waxa ii soo baxay inaan ummadda Soomaaliyeed aan u soo gudbiyo waxyaabaha ii soo baxay waxaa kamid ahaa in dadka Soomaaliyeed aysan dhaqan u lahayn inay wada shaqeeyaan some reason waa aqoonti yar aniga aan u leeyahay Soomaalida intii yar aan ku soo dhex jiray waxaan ka soo faa'iidaystay aan soo fahmay markaan leeyahay dadka Soomaaliyeed dad wada socda isku si wax u wada ma aha waxaan rabaa marka inaan arrintaas aan falanqeeyo waxaa jirtay madaxweynihii markaas jiray Sheekh Shariif Sheekh Ahmed
iyo cumar cabdirashiid oo ra'iisul wasaarihiisa markay xamar ku soo noqdeen February waxa ugu horeysay ay sameeyeen waxa ahaa ay ahayd ay yiraahdeen annaga ma rabno in aan taageero ka helno UN-ka lacagaha mishaarada inay bixiyaan annaga ma rabno waxaan rabnaa inaan annaga isku tashanno isla markii waxay bilaabeen inay dekadda ay dad geystaan ay fahmaan dakhliga dekadda ka soo galaya intuu la egya say ciidamadooda siday maaragtay shaqaalaha dowladda ay wax uga bixin karaan dowladdii way rafaaday intentionkooda aad buu u fiicnaa dadaalkooda ma xumeyn markii hore runtii marka laga hadlo marka waxaa dhacday February wadankii soo galeen xamar soo galeen Marso April May June July ilaa August dowladdii inta badan madaxweynaha markaas jiray Sheekh Shariif iyo wasiirka maaliyadda Shariif Xasan waxay ahaayeen dad aad u safar badan wadanka inta badan waxaa joogay ra'iisul wasaaraha Cumar Cabdirashiid marka waxay awoodeen inay shaqaalahooda lacag siiyaan shaqaalaha dowladda u shaqeeyo maxaa lahaa Marso April iyo May wasaarad waxaan lahayn 39 wasaaradood aan lahayn waxay u qoondeeyeen wasaarad walba $12,000 operationka wasaaradda lagu wadaayo baarlamaankii soo haray baarlamaankina waxay siiyeen lacagihii markaas loogu talagalay April May June ilaa July 4 bilood shaqaalihiina 3 bilood ay siiyeen shacbiga kacay dowladdii ka horeysay Cabdullaahi Yuusuf waxay ahayd dowlad mishaarka bixiso la kabayay dowladdiina waxay tiri anaga iskabeena dowladdan dad kalena ma rabna inaan taageer ka helno waxaa timid dowladda inay shaqayn weyso oo meeshii rabtay ay gaari weyso waxaa timid in dowladdii lagu kaco propaganda badan la fidiyo markaas waxaa joogay nin la yiraahdo Walad Cabdalla oo haystay Umpos oo asagana qorshe gooni watay oo mar walba rabay in oo ina Cabdirashiid uu markii hore raali uusan ka ahayn inuu xukunka ka qaado waxaa dhalatay ilaa September dowladdii markay soo gaartay dowladdii sumcadeeda ay baabaaday oo meel walba suuqa loo geliyay Cumar Cabdirashiid waxyaabuu sameeyay markaas waxaa kamid ahaa dib ayuu iskugu noqday wuxuu yiri istaraatiijiyo la yimid oo ahayd 3 wax raalina kamaysan ahayn xukuumadda markaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ma wada socdo madaxdii markaas jirtay oo iskugu yeereysay muqaawanada oo ARS ka timid Asmara iyo Cumar Cabdirashiid oo markaas lagu soo dhex tuuray dad wada socday ma ahayn isku qorshana ma ahayn isku meelna wax u maysan wadin waxa marka Cumar Cabdirashiid fikradu la yimid 3 wax inuu wax ka qabto shir walba markuu tago wala soo cambaaraynayo waxa la waxba meesha kuma haysan waxba ma qabanaysan inay warnimoon waa dad diiday inay gacanta horsadaan caalamka ay yiraahdaan naga bixiya shaqaaleena marka dhinac walba ayagana block laga saaray wuxuu sameeyay marka fikrado fiican oo la yimid vision fiican ah Cumar Cabdirashiid markaas prime ministerka 3 qodob oo la yimid uu fahamsanaa in international community-ga u janjeeraan ay maqli doonaan hadduu arintaas gado wuxuu la yimid security in wax laga qabto wuxuu kaloo la yimid governance structure maamul wadaag structure in la sameeyo wuxuu kaloo la yimid qaybta saddexaadna waxay peace building initiatives qaybta afraadna waxay in uu abuuro fiduciary agent ah lacagaha adduunkana siinay maadaama aan lacagna lagu aamini karin meel lacagahaas lagu yani laga maareeyo security-ga marka 2 qodob ayaa la socday in la isku keeno ARS markaas jiray oo Asmara ka yimid iyo TFG forces waxay ahaayeen Cabdullaahi Yuusuf ciidankii uu ka tagay Allah u naxariistay oo ahaa 3,000 oo ciidan oo dhisan oo tababaran oo Ethiopia Uganda lagu soo tababaray oo markaas TFG lagu tilmaamay in Cumar wuxuu yiri waa in la isku keenaa la harmonize gareeyaa qaybta labaad oo security waxaa kamid ahaa in al-shabaab laga saaro xamar international community way dhegeysanayeen qorshahaas uu la yimid waa 2 arin ah oo security-ga qoysay qaybta labaad waxay sida maamulka loo dhislaa structure-ki governance-ka wuxuu la yimid Cumar Cabdirashiid markaas waxaan qabnay 550 xildhibaan wuxuu yiri okay 550 xildhibaan waxaan rabaa kuwa active-ka ah oo shaqeeyo oo mar walba baarlamaanka yimaado in la siiyo sitting allowance si ay wax u helaan aysan kaliya aysan dependent ku noqon yani gunada ay helayaan waa kow midda labaad waxay
waxaan qabnay 30 markaas jiray 39 wasaaradood wuxuu yiri 39 wasaaradood oo jiro waxaan aniga rabaa inaan kala saaro inta badan qabiilkan yaan ku maartay pacification sameeyay qabiilka inaan ku yani dadka inaan tusno inay iska dhaxarkaan qabiil walba wasiiro inay leeyihiin laakiin waxa anaga muhiim noo ah 15 wasaaradood ayaa core minister noo ah kuwaasna waxaan rabaa inaan kala qaybiyo ay idin keeno kuwa koorka ah wax qaban doono qaybta saddexaad waxay ahayd in la abuuro public finance oo aniga xafiiskayga ah in capacity-giisa la xoojiyo in shaqaalana la abuuro qaybtii afraadna waxay ahayd in constitutionki la approve gareeyo oo ay qoreen kuwa la yiraahdo IFCC Independent Federal Constitutional Commission oo ay ahaayeen I believe waxaan u maleynayaa inay ahaayeen 15 qof oo yar godobiirsaa markaas uu ahaa gudoomiyaha iyo in la sameeyo financial report dakhligana soo galo iyo meesha dakhligaas uu ku baxo shantaas qodob waxay ahaayeen governance structure-ka qaybtii saddexaad waxay ahayd peace building initiative-ka waxay ahayd taas in al-sunna wa jamaaca lasoo xarigeliyo qaybtii afraadna waxay ahayd Price Waterhouse Cooper in la keeno oo lacagaha adduunka noo deeqayo inaan annaga aanan maamulaynin waxaan ogolnahay in meeshaas lacagaha lagu rido oo meeshaas laga maamulo si hadhubti corruption annagana loogu eedeynin horta Cumar waa ku guuleystay arrintaas international community ma aysan filaynin in shakhsi Soomaali oo prime minister qorshe noocaas oo kale la imaan karo in shatiifadaas asaga lahaa markuu arrintaas la yimid way kala qaybsameen international community markaas Nairobi noo fadhiyay umbos waxaa xukumay nin la yiraahdo Walad Cabdalle uu watay nin la yiraahdo la shaqeynaa gacan yaro u ahaa Maxamed Cabdirasaaq uu watay inuu prime minister ka dhigto ku bedelo Cumar Cabdirashiid oo dagaal cad Cumar Cabdirashiid ku hayay waxaa jiray EU-da nin la yiraahdo George Mark Andre oo haystay markaas oo Cumar Cabdirashiid saaxiib ahaayee oo aaminsanaa Cumar Cabdirashiid inuu la shaqeyn karo uu yahay shakhsi degan oo maamul wanaag ka shaqeyn karo waxaa kaloo jiray shakhsi kale oo haystay UNDP humanitarian ka dhan OCHA oo laakiin UNDP na haystay oo la yiraahdo Mark Bowden oo Cumar Cabdirashiid ka soo wada shaqeeyeen Sierra Leone iyo Sudan iyo meelahaas oo ayagana aad isku dhawaayeen marka international community ku kala go'ay qaarna waxay la safteen Cumar inay arrintan kala shaqeeyaan qaarna waa diidanayeen sida Walad Cabdalle oo kale Cumar waa ku guuleystay arrintii waxaa loo ogolaaday Cumar Cabdirashiid arrintii conditions markuu keenay wuu la fariistay madaxdii markaas jirtay waxaa George Mark Andre waxaan xasuustaa maqaayad Nairobi ku taalo ayuu Cumar ku balansiiyay Nairobi intaan shaqo u nimid anaa la fadhiyay markaas intaas markuu Cumar arrintii gudbiyay George Mark Andre wuxuu yiri arrintan waa arrin fiican waa arrin gadmayso waana ka shaqeynaynaa ciidanka Soomaaliyeed inaan marka lacagta idin soo deyno ciidanka Soomaaliyeedna lacagtooda aan siino shaqaalaha Soomaaliyeedna lacagtooda aan u bilaawno iyo booliiska lacagtooda inaan u bilaawno si ay dawladda u hesho maartay intaas laakiin conditionada waxa muhiim ah inta condition adiga hadda aad keentay inaad ka soo baxda ma ka soo bixi kartaa ayaga ma aysan aaminsanayn dawladda inay ka soo bixi karto laakiin dawladda ma wada soconin markaas ideology ayay ku kala doonayeen Cumar Cabdirashiid waa ku guuleystay halka wuxuu ku filgarooway waxay ahayd in al-shabaab laga saaro magaalada Xamar inta kale oo dhan waa ku guuleystay sheekada si u socotay 2010 la soo gaartay 2010 markii la soo gaartay siyaasadeen ayaa bilaawatay groupkii maxkamadaha ayaa kala jabay oo Shariif Xasan ku mashquulay inay la dagaalamaan oo groupkaas waxa hadana ka soo group kala abuurmay oo la yiraahdo Allah Sheikh oo ayagana ajenda kala watay waxaa bilaawatay markii wixii oo dhan in la siyaasadeeyo waxay bilaabeen nimankii Allah Sheikh inay yiraahdeen waa inaan ka turnaa ninkan ka soo jeeda Puntland Cumar Cabdirashiid Al-Shamaake Puntland waa state weyn waa state ka dhibaatada nagu hayo waa state ka mar walba aan ka fariisan la'anahay caqabad nagu ah oo ajenda gooni mar walba la imaanaya miiska haddii waxaanu qorshe oo Cumar Cabdirashiid uu ku guuleysto oo waxaanay noo yimaadaan Puntland ma aan iska celin karno ayagoo state-ka ugu weynaa meesha fadhiyo prime ministerna meesha uu fadhiyo dad aan ka baxsan karna ma marka inaan xal helnaa waa inaan turnaa waa inaan keennaa nin Mareyxaan ah
siyaasadda meeshaasay ka bilaawatay waxaan rabaa shacbiga soomaaliyeed inay fahmaan dadka soomaaliyeed inaysan wada soconin sida raqiiska oo annaga dhexdeena aan u wada xisaabtanno aan iskula dagaalno oo aanan caqli lahayn oo aanan u fiirinaynin maaragtay danta ummadda soomaaliyeed waxaa dhacday cumar cabdishiid in loo heshiiyo arrintii uu ka soo shaqeeyo in laga qaado markii arrintii uu saxiixay oo la ogolaaday oo international community ay yiraahdeen waa ogolnahay intaysan dhimin marka aniga ugu dambeeyey baxay arrimahan oo dhan anaa ka shaqaynayay mar walba waxaan keenayay 15 qof ayaan Nairobi keenay UNDP-da oo wasaaradahaas aan maanta adaaya idin sheegay ka kala socday waxa markii arrinta intaas kala ogolaadeen marka waxay dhaheen waxaan hadda rabnaa inaad noo keentaan arrintan waxaa loo dhiibay niman expert ah inay ka shaqeeyaan wasaaradaha si loo yareyn lahaa lagu heshiiyo kuwa core ministerska ah waa laga soo shaqeeyay wasaaradihi lagu noqday waxaan keenay in habkii stabilization programkii haddii al-shabaab magaalada laga saaro sida magaalada loo dejin lahaa qoraalkaas anaga ma aan qorin waxaan noo soo qoray noo soo diray safiirkii markaas u fadhiyay talyaaniga Stefano Dejek nin la yiraahdo anuu ii soo diray asagaa noo soo qoray arrintaas stabilizationka anuu ii soo diray emailka iigu soo diray prime minister kan u geeyay prime minister wuxuu yiri adiga iyo Omar iyo Cabdullaahi Sheekh Ali Qaloocow oo markaas state minister ka ahaa qorsheynta inaad ka wada shaqeysaan Omarna markaas wuxuu ahaa wasiirka tacliinta sare saddexdeena arrinta fiirinay arrintina waan habeenay inta badanna arrintaas si fiican waxa uu habeeyay Omar waxaan kaloo marka arrinta aniga igu soo xirantay waxay ahayd in financial report la sameeyo qofkii ugu dambeeyay anigu ahaa markii wasaaradihii baarlamaankii iyo wixii oo dhan aan isku keenay oon qorshihii soo dejinay hal wax ayaa dhinnaa financial report in la diyaariyo cumar cabdishiid anoo la fadhino ninka la yiraahdo George Mark Andre ayuu yiri arrintan adaa u xil saaran maadaama shaqadaada ay tahay aniga markaan bilaabay inaan qoro oo hay'adihii kale oo dhan shaqadooda ay soo dhameysteen oo ay dhiman tahay financial report markaan qoray financial report ayaan xafiiska prime minister maalinka dambe intaan ugu waxaan ku yiri waan dhameeyay laakiin waxaa muhiim ah arrintan waxaa jira shakhsi Soomaali aad arrintan iga aqoon badan expertise-kiisana aad aan u baahannahay inaan ka faa'iidaysano oo la yiraahdo Ali Ciise oo ah hay'adan la yiraahdo xisbi oo joogto meesha la yiraahdo oo ka shaqeysta Addis Ababa cumar wuxuu yiri arrintii arkay waxaan soo qoray wuxuu yiri waa fiican tahay maxay u qancin wala talinaysa inaan Ali Ciise la xiriirno aniga waxay la tahay hadda Ali Ciise inaad wacdid aniga Addis Ababa aan aado arrintan Ali Ciise naga fiiriyo Ali Ciise wacay Ali Ciise wuxuu yiri waayahay ii soo dir fartaag Addis Ababa aan aaday arrintii aan qoraan u geeyay Ali Ciise waa ila habeeyay qalaad badan oo meesha ka soo saaray wuxuu yiri saan ayay ku habboon tahay inaan international community aan u wajahno saan u sameey reportkaas website-ka ku jira waxa ku qoran inaan qoray oo igala shaqeeyay Ali Ciise hay'adii la yiraahdo xisbi waa report-ku ugu horreysay aan qornay oo cadeynayso dakhliga soo galay wadanka soo galay markaas iyo dakhliga saan u isticmaalayay markaas waan isku keenay UNDP-dan u tagay anaa soo baxay Nairobi mid arrintan u sharxay arrinta meeshaas waana loo ogolaaday waxa la keenay in ay arrintii ogolaadaan ay yiraahdaan waxaan idin ogolnahay 15 kun oo ciidan ah 12 kun ciidan Mareykanka bixinayay oo ciidamada 3 kun Talyaaniga bixinayay waxay kala noo ogolaadeen waxaan la fariisanay group la yiraahdo steering committee oo markaas jeergareynaya international community oo dhan xafiiska UNDP-dan kula kulanay waxaana loo ogolaaday 5500 oo ciidanka booliiska ah inay Talyaaniga bixinayaan waxa kale oo loo ogolaaday 519 xildhibaano in European Union-ka ay bixinayaan lacagtooda iyadoo arrinta la ogolaaday la saxiixay wax walba halka wax kaliya dawladda isku feelgarooday Cumar watay waxay ahayd in al-shabaab laga saari way magaalada ayay arrintii la siyaasadeeyay Cumar Cabdishiid laga saaray xukunkii laga qaaday waxa la keenay farmaajo wuxuu la kulmay intaasoo wax oo qorsho degsan ciidanka Soomaaliyeed lacag helayo parliamentarianki lacag helayo waxaan ka hilmaamay iyo wadamadii carabta noo qoondeeyay $5 milyan inay bil kastana siiyaan jaamacadda carabta oo budget support ah lacagii ayuu farmaajo la kulmay markii la keenay oo Cumar Cabdishiid si qabiil ku jirto looga qaaday meeshii oo aan gambasho lahayn oo loo keenay shakhsi Mareyxaan oo markaas oo ahaa farmaajo arrinta horta meeshaas ku socotaa waxa marka intaas aniga aan u dan leeyahay wax kala maha waxa nasiib xumo ahayd ummad Soomaaliyeed aan wadanahay wadankii waa burburay
dowlad ayay ahayd madaxweynihii prime ministerkii groupkii dad wada socdo maysan ahayn waxaa kaloo ka sii xumeed ayagoona wada soconin oona isku qorsho isku sina wax u wadin in xalana loo fadhiyey oo ayaga loo tashanaya mar walba oo qofkii fikrad la yimaadana oo la diidanaa qofkii wax garad ana lagu tumana banaanka la dhigaya qorshahaasna marnaba ayaga intay meel fariisteen kumaysan xisaabtamin inay yiraahdaan war cadowa meesha noo fadhiyo annagiya nala kala jaraya kan macnaha noogu fadhiyo oo wax la imaan karo oo qorshe keeni karo maanta waa inaan ka faa'iidaysanaa waa inaan yani aanan siyaasadeynin arrintii farmaajo timid waxaan rabaa farmaajo muxuu la yimid farmaajo waa su-aasha meesha ku jirto farmaajo wuxuu la yimid arrin ka duwan arrintii cumar cabdirashiid uu ka soo shaqeeyey wuxuu la yimid isla markiiba farmaajo in uu consultants hire gareeyo waxaa la yiraahdaa park strategy bishii waxaa loo qoondeeyey $25,000 farmaajo wuxuu kaloo la yimid oo ka duwan arrintii soo socotay in veteran of Ogaden war dadkii ogaadeenaya dagaalkii ku soo dhaawacmay oo qaarkood meesha ku haray in lacaga loo qoro waa arrin aad u fiican bay ahayd wuxuu la yimid farmaajo dumarka Soomaaliyeed in lacag loo qoro wuxuu kaloo farmaajo la yimid Somali artist musicianadiyo idil in loo yeero oo la spiritka Soomaalida la soo celiyo si wadaninimo loo abuuro intaas wuxuu ka shaqeeyay arrin fiican ay ahayd asagana wuxuu la yimid qorsho ka duwan qorshihii Cumar Cabdirashiid ahaa oo ku salaysnaa Cumar Cabdirashiid ahayd in nidaam dawli ah aan soo celino tartiib ah farmaajona wuxuu la yimid nidaam ah populism annaga waa inaan shacbiga kicinaa marka waxaa muxuu hoos ku watay waa marka arrinta farmaajo aan raba inaan sheego wuxuu hoos ku watay baarlamaanka in la afgambiyey markaas asagii Shariif Xasan secret ma ahayn dagaal xun baa dhaxmaray wuxuu kaloo hoos ku watay inuu la dagaalamo ama uu fuliyo legacy Cumar Cabdirashiid uu watay in la baabi'iyo oo asaga ka horeeyay wuxuu kaloo sameeyay farmaajo oo la yimid 4 generaal oo markaas dagaalka waqtiga dagaalka aan ku jirnay oo aad u xumeed oo generaalaha inuu wada ceeriyay generaaladaasna waxaana ka mid ahaa generaal Axmed Jumcaale Geedi waxaa ku jira generaal Cali Xasan Looyaan Cali Madoowe waxuu kala ahaa generaal Maxamed Sheekh Xasan generaal Cabdullaahi Macalin 4taas generaalana isla markii hal wada ceeriyay qorshe kale ayuu watay maxaa marka timid meeshan kaaga cad xukuumadii oo hal madaxweyne uu lahaa oo 2 prime minister oo kala duwan oo xukunkii kala qabsaday nidaamkii ku kala socdeen maysan ahayn xukunkaana ka horeeyay nidaamkan xooji adna tan ku soo darmaysana tan baabi tan la imo waa waxa mar walba na looga faa'iideysanayay oo dadkan cadowga nagu ah oo xalana noo soo fariistay qorshaha mar walba nala iyo maskaxiyan anaga saa u shaqeynaa la fahmay mar walbana na looga yani weak points kana looga dhigo dhinacna laga garaaco laga dilo maadaama aan ahayn dad wada tashto wada shaqeeyo qofka kale wuxuu rabo keeno oo wanaaga ah in la xoojiyo maxaa marka yimid sidii sheekadu u socotay farmaajo waqtigiisa yimid asagii Sheekh Shariif wixii dhacayna Soomaaliya ogiin farmaajo watii xukunka laga qaaday 8 bilood wixii ka dambeeyay Cabdiwali Gaas yimid Cabdiwali Gaasna wixii ka dambeysana waxba lama imaanin Kampala Accord ayaa lagu shaqeynayay marka waxaan rabaa hal daqiiqo intaanan Xasan Sheekh arrintiisa aan galin comparisons inaan umada fahamsiiyo hal madaxweyne 3 prime minister oo 4 sano gudaheeda mid 19 bilood jooga mid 8 bilood jooga midna 13 bilood 14 bilood camal joogay ayagoo midka kala xoojin karay wada shaqeyn karay oo qof walbana ilaalin kara legacy-ga kii ka horeeyay ayaa horta saas nasiib daradaas umada Soomaaliya ku dhacday maxaa dhacay nidaam inuusan dhicin systemka inuusan isqabsan wax wanaag ah oo runtii ay la dhigi karana ay wanaag kasta ay sameeyeen ayaa burburinayay Xasan Sheekh yimid Xasan Sheekh markuu yimid corruption waa sii xoogaystay dhibaatada waa sii xoogaysatay asagana legacy-ga aan ka faa'iideysanay waxay ahayd anoo soo gaabinayo oo fiican gobolo ayuu abuuray absaqo intaadan Xasan gelin dadweynaha kale waxaan leenahay soo dhawaada Ramadaan Kariim Mubaarak waa showgi gaar haye oo idinkaga imaanayay studio hayaga magaalada London
waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulwaaxid cabdulaahi khaliif waxaa isku soo dabriday muxiidiin jiriya nuur wadani oo kanada jooga waxaa martino ah cabdirasaaq fartaag oo ka shaqaynaya xafiiska ra-iisul wasaaraha qaybta maaliyadda 2009kii intii u dhaxaysay 2011kii waa khabiir waxaa laga hadlaya siyaasadiya ma ahan waa arrin uu u hayo qoraallo la yaqaanay marka si fiican u dhageysta dadkiinaan iska caytamaya qaar ama kaftanka joojiya marka dhageysta marka cabdirasaaq soo noqo marka horta saddexdii prime minister saasay siyaasadooda ku kala duwneed aniga hadda kama hadlayo ninkii corruptionka badnaa iyo kii corruptionka yaraa siyaasadooda iyo waxaan ka hadlaya habka u maareeyeen in nin walba istaraatiijiya gooni uu la yimid iyo sida ayaga looga faa'iidaystay ee u garan waayeen inay wada shaqeeyaan ay ilaalsadaan legasigooda ma dhicin nasiib darro xasan shiikhaa yimid xasan shiikh waxyaabo badan qaldan ayuu sameeyey kama duwanayn xukuumadihii ka horeeyey asagana waxaan ku xasuusanaynaa maamul goboleedyadii ayuu abuuray waa maanta federaalka soomaaliya la leeyahay xasan shiikh ayaa abuuray haddaanan been la sheegaynin oo intaasoo maanta gobol oo jirto inkastoo gobollo badan sida puntland oo kale arrintaas aad ugu ololeysay iyo ka dagaashay in lagu federaalka la xoojiyo marka waxaan rabaa hadda inaan ku imaado maxaan comparancygan aan u sameynaya ay ku kala duwan yihiin soomaaliya waxaa jiro dhibaato badan ayaana haysato waxaana laga ilaaliyey aan aaminsanahay markaan leeyahay dad wada socdo manihin waan ka hadlay dad wada socdo manihin marka intaanan xasan shiikh aan haddana aan kusii fogaanin dad wada socdo manihin markaan leeyahay tusaale kalaan idiin soo qaadaya waqtigii oo cumar cabdirashiid iyo sheekh shariif oo prime minister ahayd waxaan xasuustaa shaqo aan u tagnay sacuudiga waa tii allah u naxariista cadow iyo khamar iyo ardaydii jaamacadda markaas dhiganaysay lagu laayay waxaan tagnay sacuudiga intaanan sacuudiga tegin shir baan waxaan u nimid maalintii kasii horeysay nairobi oo high level committee meeting lagu yeeri jiray oo steering committee markaas meeshii jiray noogu yeereen oo laga hadlayay arrimahan haddaan soo tnaa waxyaabaha caqabadaha ugu horeysay nalagu haystay markaas waxay ahayd oo mar walba dowladda meeshay timaado waxaa la dhahayay halkeed xukuntaan meelaad xukuntaan ma jirto 3 kilometer of square aad xukuntaan xamar kaliya xukuntaan xamarna ma wada xukuntaan markaad soo baxaysaan madaxtooyada aad ka soo baxdaan halkaas jidaad idin furan oo la yiraahdo Makka al-Mukarrama eelboorka ku timaadaa meel kale gobolladii aad maanta districtyaasha xamar meelaad xukuntaan male xamar weyne iyo waxaan ka ahayn Shingaani arrintaas dhibaatay ku noqotay dowladdii markaas jirto meel walba ay tagto shir walba ay fariisato arrintaasaa la horkeenayo maalinta aan shirkaas ka baxnay maalinta ku xigtay waxaan aadaynay sacuudiga diyaaradda sacuudiga markaan tagnay waxaan ka deganay sacuudiga waana la kaxeeyey qasrigana dejiyeen qasrigii markana la dejiyey cumar cabdirashiid wuxuu sameeyey wuxuu yidhi arrinta waxaan rabaa inaan ka hadla aan leeyahay dad wada socda manihin wuxuu yidhi shaksi qolkiisa geli kara ma jiro nin walba waxaan rabaa alaabta qolkiisa loo geeyo swiitkayga ha la isugu wada yimaado haddaba swiitkaan wada fadhiisanay waxaan ku wada nahay marka prime ministerkii cumar cabdirashiid wasiirka arrimaha dibadda markaasaa jingeli wasiirkii qorsheynta cabdiraxmaan cabdishakuur wasiirkii hidaaya tacliin sare omar wasiirka amniga shambulushe iyo nin khabiir ah oo safiir ahaan jiray la yiraahdo safiirka ciraaq ahaan jiray magaciisa iga maqan waxaa lahaa ayaa nala socday iyo aniga bes cumar cabdirashiid wuxuu arrinta meesha keen wuxuu yidhi war aniga mar walba shir walba aan ka qayb galno waxaana hor yimaado hal su'aal oo aan ka wada jawaabi la'nahay waxaan rabaa berito waxaan ka qayb galaynaa shirki OIC-da Islamic Conference-ka su-aashaana waa nagu soo noqon doontaa dad wada socdaan nahay xukuumaddani waa wada dhan nahay maxaan ku doodi karnaa berito haddaan shirkaas ka qayb galno nin walba arrinuu la yimid cumar wuxuu soo jeediyey inuu yiraahdo war anaga 3 kilometer square ma xukunnay waxaan xukunnaa Puntland deegaanka Soomaaliya ugu weyn gobolkaas waa gobol ka mid ah xukuumadeena ku jira doodaas ma keeni karnaa rag meesha ku jiray dooda si kale u arkeen arrin qabiil ay u arkeen way diideen doodii sida loo dagaalamayo dhinac iyo back and forth loo socday markii dambe way ogolaadeen shirkii maalinka dambe aan galnay arrintaas la hor keenay in Puntland ay ahayd shir inay ka mid tahay xukuumadda
oo annaga aan nahay inaanan xukumin 3 kilometers square oo dhulkaas baahan oo weyn oo xukuumadda ay ka tirsantahay marka waxyaabahan aan ka soo faa'iidaystay oo runtii oo calolxumo ah oo mar walba Soomaalida aan kala yaabo waxa kamid ah dad waxaan nahay hal dad ah hal diin wada leh hal lul wada degan oo mar walbana haddana dhaxdooda siyaasadeynay waxaanan macno lahayn ku mashquulsan taas waa waxyaabahan soo bartay marka hadda waxaan rabaa inaan soo gudbo intaasoo waxaan soo bartay waxaan marka aan rabaa hadda inaan ku imaado xukuumadda jirto maxay damacsan tahay maxay kaga duwan tahay intaasoo xaaladoo dowladihii ka horeeyay oo asagana ninka hadda maanta madaxweynaha uu marna prime minister ka soo noqdo muxuu kaga duwan yahay muxuu la yimid muxuu damacsan yahay maxaa socdo ummadana maxay og tahay xasan sheekh wuxuu qabtay waan ka hadalnay qalaadkiis horaan uga soo hadlay laakiin waxaan kusoo gabagabeynayaa in uu goboladan abuuray maanta waxaan aaminsanahay aan ogahay aan la socdo oon reportkaygana kusoo saari doonaa reportka soo socdo 2012 ilaa hadda campaign inuu socday oo farmaajo la keenay xukunkan loo waday interruption waxaa sameeyey 2012 waxay keeneen xasan sheekh international community nimanka xalana aha halo kuma maqlaa ay keeneen international community marka campaignka socday muxuu ahaa 12kii xasan sheekh la keenay qarsoodi ma ahayn waxaa watay ingiriiska suu ku yimid xasan sheekh waa yimid 4 sano xukunka ka taliyay wuxuu qaribay wuxuu wanaajiyay waan ognahay goboladii iyo meeshuu wadanka soo gaarsiiyayna waan ognahay waan ka hadalnay corruptionkiisa horaan uga soo hadlay waxaan hadda ku noqonaya ma jirto laakiin goboladii aan rabaa hadda inaan xoojiyo iyo istiraatiijiyada maanta socoto xukuumaddan markay xasan sheekh intuu hadda madaxweynaha ahaa farmaajo waxaa looga yeeray Nairobi farmaajo wuxuu ahaa campaign ayaa socday campaignka waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego waxaa laga saxiixay non disclosure agreement wax la yiraahdo oo ummadda Soomaaliyeed ogeen campaignkiyo socdo xukuumad jirto madaxweynaha xasan sheekh maxamuud uu yahay markii tartanku socday waxyaabaha ummadda Soomaaliyeed xaalana oo team ah ay wateen ay shakhsiyaadkay wateen ay habkay wax u wateen waxaa kamid ahaa in farmaajo la keeno in farmaajo laga saxiixdo wax la yiraahdo non disclosure agreement maxaa kamid ah waxaa kamid ah in farmaajo lagala shaqeeyo xildhibaano dhalinyaro ah in baarlamaanka lagu soo badiyo waxaa kaloo kamid ah in hadduu xukunka ku guuleysto khayre in la keeno in laga ilaaliyo habargedir abgaal inay prime minister ka noqdaan waa non disclosure agreements ka kamid ah waxaa kaloo kamid ah dhalinyaro yaryar oo wasiiro ah in lagu abuuro oo laga ilaaliyo dad wax garanayo ummadaas in madax looga dhigo waxaa kaloo kamid ah in la abuuro media oo budgetna loo sameeyo oo ay kamid yihiin tviyada oo ay kamid yihiin social media sida twitterada kale sida maxaa lahaa facebookyada kale iyo raadiyaasha in la helo dad badan oo budget loo sameeyo si ay uga maxaa lahaa uga qayb galaan propaganda la rabo in la sameeyo maxaa kaloo sina loogu isticmaalo madaxdii ka horeysay si loo propaganda loogu isticmaalo loo baabi'iyo waxaa kaloo non disclosure agreement ka kamid ah Amazon in la baabi'iyo oo weji kale loo sameeyo waxaa kaloo kamid ahaa in calanka Soomaaliyeed la bedelo calanka Soomaaliyeed in la bedelo intaas wax ayaa non disclosure agreement uu kamid yahay maxaa loo ballan qaaday marka hadduu intaas uu sameeyo oo farmaajo uu howlgeliyo waxaa loo ballan qaadaa idin sheegaya Soomaaliyeed in la baabi'iyo regional authority oo intaasoo sano laga soo shaqeynay si ay Soomaali u hesho grassroots oo gobol walba Soomaali u dhismo oo loo helo xal si ay Soomaali mar dambe aysan iskugu dhicin in la baabi'iyo midaas waxa kaloo loo ballan qaaday hawiye business community oo xamar ah bakaraha in la baabi'iyo waxa kaloo loo ballan qaaday in loo abuuro tribunal system oo ummadda Soomaaliyeed oo lagu xakameeyo madaxda qaarkoodna hadhowta laga dhigay dambiilayaal ah si loo keeno waxaa looga ballan qaaday Macaruusha laga dhigi doonaa ma Nairobi baa laga dhigaya labadaas meel ayaa la isku hayaa oo loogu ballan qaaday waxaa kaloo
laga shaqeeyo ka mid ahaa in budget loo qoondeeyo nimankaas tribunalka shakhsiyaadkaas la xakameyn doono in budgetkooda oo la hayo oo meel loo dhigo oo shakhsiyaad asaga ku kalsoon yahay oo Nairobi fadhiyo oona shakhsiyaad marexaan in budgetkaas loo dhiibo si aan dadka aysan u fahmin waxaan rabaa marka inay Soomaalida fahanto mid waxa kaloo jiro in World Bank iyo IMF-tana ay ka shaqeeyaan in propaganda loo sameeyo oo la yiraahdo maamul wanaag ayaa jiro Soomaaliya waxaan gaarsiinaynaa heer lacagaha lagu leeyahay laga cafiyo marka waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed Cabdulwaaxid inuu sheego wamida maxaa tala ah marka inta xukuumadoodan ka soo tilmaamay khaladaadka soo dhacay waxay ku kala doonayeen istiraatiijiyadooda waad fahanteen maxaa maanta ummadda Soomaaliyeed xal u tan u aniga marka waxay la tahay ummadda Soomaaliyeed u soo bandhigaya in la daayo regional authority-ga shacbiga Soomaalida lagu mashquulinayo demokrasiyada aanan meel jirin in la fahmo xukuumaddan 3 sano jirto qorshe dheer ayay wadataa dagaalo badan ayaa iyo qorshe dheer oo aanan ummadda Soomaaliyeed isku diri joono ayay ku socotaa maxaa tala waxa tala aniga in la sameeyo nimankan regional authority-ga ma aha niman wanaagsan niman qariban wanaag ummadda Soomaaliyeed uma soo wadan laakiin in 3 sano uu farmaajo madaxweyne yahay in shakhsiyaadkaas la daayo oo xukunkooda loo dheereeyo Axmed Madoobe xukunka loo dheereeyo 3 sano intuu farmaajo joogo Cabdiweli Gaas loo dheereeyo Awaare loo dheereeyo ninka la yiraahdo maxaa la Shariif Xasan loo dheereeyo iyo Xaaf aniga taasan maxaa keenay arinta hadda socoto waxa waaye baarlamaan wadankii ma jiro oo federaal garsoor ma jiro wadanka check and balance wax la yiraahdo check and balance kaliya aan maanta haysano waa maamul goboleedyadaas oo qariban haddii laga takhaluso oo shakhsiyaad cusub la keensado xukuumaddaanana oo intaasoo qorshe loo soo dejiyo oo lagu hagaayo oo ay ka socoto shakhsiyaad caddaan oo u fadhiyo meesha la yiraahdo xalane dhibaatada imaan doonta Soomaalida kama aysan fikirin dhibaato weyn ayaa imaanayso taas waa halka kale aan rabo inaan ummadda aan u sheego waxa waaye nimankan regional authority waa inay ka shaqeeyaan mid waa inay guddiyo sameeyaan Puntland waa inay 3 qof oo guddi ay soo saartaa Galmudug waa inay 3 qof keenaan oo aqoon-yahaniina oo aanan ku base garaysanayn 4.5 Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo Jubbaland 15 qof waa inay keenaan aqoon-yahaniina 10 qofna waa inay ka shaqeeyaan la raadiyaa farmaajo lagula xisaabtamaa la dhahaa non disclosure agreement aan la gashay international community waa ina ummadda Soomaaliyeed u soo bandhigtaa macalinka Soomaaliyeed rabta inaad ka taqalusid ma inta wax aan soo sheegay inaad cadaysid maxaad ku iibsatay maxaad damacsan tahay in arintaas la baaro guddi loo sameeyo guddiyadaasna waxaa ka sii weyn in dadka aqoon-yahaniinta Soomaalida oo meel walba joogo hadda London wax yar baan rabaa inaan idin sheego Ingiriisku waxay wadaan maalin hore London baa degan tahay Cabdiwaaxido waxaa jira wiilal ilmo yar oo la yiraahdo maxaa lahaa anti tribal movement waa dad aad u wanaagsan qiiro ku jirto wadanka jecel la dagaalamayo tribalismka 10 Downing Street looga yeeray laakiin aqoon badan ummadda Soomaaliyeed aan u lahayn waxaa London jooga maanta sida ummadda Soomaaliyeed loola dagaalama ku sheegay waxaa wadanka joogo Turunji magacyo badan oo Soomaaliyeed waxaa joogo London oo maanta oo aqoonyahan oo Soomaalida u baahanta inay fahanto waxaa joogo Maxamed Ciise Turunji waxaa London ku joogto meesha la yiraahdo Mareykanka Raqiya Xaji Ducaale oo qof heer sare Soomaaliya meel ka gaartay waxaa jirto Culreeji waxaa jirto Faadumo Isaaq Bixi waxaa jiro Professor Maxamed Xasan Muudey dad badan oo Soomaali oo meelo badan ku kala nool oo institutional memory oo loo baahan yahay khibradooda in loo yeero la yiraahdo war wadankan idinka ka soo qeeyay Maxamed Cabdi Faarax joogo oo professor jaamacadda haye ummadan Soomaaliyeed dhinac walba social kadii la rabo in wax laga qabto policy-ga Soomaaliya hadii la rabo in wax laga qabto hadii la rabo maxaa lahaa economic in wax laga qabto intaas oo qof Soomaali khabiira oo weli nool ayaa joog
ku tashanayso oo raadinayso inay dadkaas u yeeraan ee la tashan ma jirto maalin walba ummad Soomaaliyeed waxa lagu wareerinayaa ilmo yar yar oo wadanka aan waxba ka fahamsanayn ayaa la rabaa wadanka marka waxaan u soo socdo waxa waa in gudiyo la sameeyaa waa in la raadiyaa waxa oo dawladda oo shakhsi walba markuu meesha yimaado go'aanka goonidu asaga qaadanayo uu dad gooni kula heshiinayo ummadda Soomaaliyeed aan ogeyn waa in arintaas wax laga qabtaa waa in la raadiyaa marka gudiyadan waxay anfacayaan dadka Soomaaliyeed wax galka aqoon-yahaniinta oo banaanka ku nool in ummadda Soomaaliyeed loogu yaro la yiraahdo war gudiyo waa in la sameeyo waa in la raadiyaa xalka ummadda Soomaaliyeed shakhsi walbana xukuumaddan yimaadana dhaqan wuxuu u yeeshay inuu sharcigu asaga jeebka kala soo baxo oo dad ajnabi ah la heshiiyo qorshuhu rabana wadanka lagu wado iyo qorsho ajnabi ah marka taas waa inaan ka xorownaa waxaan kaloo rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego aqli maha xukuumad walba jirto sanad walba inuu prime minister jiro la ceeriyo baarlamaanka waxaan kula talinayaa xukuumaddan inay jirto farmaajo waa inuu xukuumaddiisa dhamaystaa 3 sano ra'iisul wasaare khayr waa inuu dhamaystaa 3 sano waxaan u baahannahay system inuu dhismo isqabsado systemka legacy-gay waxay abuuraan waxay sameeyaan iyo waxay la imaan doonaan meeshan san bari ka cabiran doonaan dhigana Abdullahi wuxuu ka tagay waan ognahay wanaagu ka tagay khalaad ku sameeyay wanaagu ka tagay waan ognahay Cabdiqaasim khalaad ku sameeyay wanaagu ka tagay waan ognahay Sheekh Shariif sidoo kale xukuumaddan waa inay jirtaa dhamaysataa waqtigeeda si aan berita assessment fiican ugu sameynaa waxaana waa sameeyeen waxaana way ku qaldameen mooshin dambana aan wadanka la keenin xukuumadana jirto regional authority-gana faraha laga qaado ayaga jira ee wada dhameystaan ilaa 2020 ay wada dhameystaan oo loo helo marka xal sida loo abuuri lahaa maamul wanaag oo is haysto gobolada ka soo qaadba gobol marka fiiriso Jubbaland aan example u soo qaato waxay qabtaa 15 ilaa 16 district isma haysato districti maxaa lahaa division-ki location-ki all the way to sub location isma haysto marka 2020ga haddii aan saan ku socono maalin walba shakhsi aan bedelno system ma noo dhismaaya haddaan Soomaalinahay ma dhismaayo marka aniga waxaan ku talinayaa jijiidkan in laga baxo xukuumaddan faraha laga qaado mooshinkan la joojiyo ayagana ay dhibaatada ay regionska ay ku hayaan ay dhaafaan regionskan inay gudiyo abuuraan oo lala xisaabtamo dawladda oo la weydiiyo agreement ay la galeen international community in banaanka la soo saaro Cabdiwaxid waa tahay aad buu u mahadsan yahay Cabdirasaaq Fartaag oo ahaa ka shaqeynaya xafiiska ra'iisul wasaaraha qaybta maaliyadda 2009 ilaa 2011 mar kale waa showgi gaar haya oo idinkaga imaanaya stuudiyahayaga magaalada London waxa ila socodsiinaya anigoo Cabdulwaaxid Cabdullaahi Khaliif waxa isku soo dubariday ustaad Muxyidiin Diryo Nuur wadani oo kala jooga gaar haye waa gole gacalka Soomaaliyeed gees kasta oo ay adduunka joogaan u gudboon yihiin dawladda guna kama qaadano mucaaradkana gacan saar lama lihin cid gooni ahna kuma xirin fikirka waa lagu kala gedsanaan karaa danta guud waa mid dadku waxay leeyihiin break hana la siiyo waaba soo gabagabeeynaa saad aragtaan arrintu meel xun bay ka degaysaa arrintan hadda uu ka sheekaya aqoonyahanku anuu dadka wax ku qorqoraan ahaan jiray internetka waagii xataa imbagaati ka hor macno weyn bay samaynaysaa arrintan weliba qodobkan ah non disclosure agreement iyo wuxuu sheegay haddaan bahaynaa saxaafadda iyo dhalinyarada haddeer ay qolkan ku jiraan ayagoo xataa qabiilkiisa aqoon Cabdirasaaq bay qabiilo kale u saarayaan oo waxyaalaha ka mid ah qof qurba jooga oo dhalinyaro oo iskuul bartay oo waxay ka hadlayaan aan la aqoon wuxuu hadda sheegay waa wada haynaa marka arrimahan oo dhan baa u baahan marka waxay noqonaysaa habeen kale inaan ku cilaaminay noqonaysaa arrintan arrin laga dhargaya ma ahan warbixintan oo kale horey nooma soo marin waa arrin u baahan in aad loo lafaguro marka waxaan isku dayaynaa weydiinayaa dadku break bay dalbanayaan Cabdirasaaq jamcahoo kale ka waran waqtigaan kale maalinta jamcaha sabti soo gelayso dadka Soomaaliya taraawix bay soo tukanayaan arrintan lagama dhamaanayo waxaad sheegaysaa khayra laga bilaabo saxaafadan hadda tacayid iska wada daymaha la cafinaya la iska leeyahay oo dadkiiba la waalaya waxaan jirinba qoladii hadda ka hortagga tribalism akhlaar badan baan ka hayaa iyaga dhib ma leh dhalinyaro iska ah oo waa arrin dib heshiin bay ahaan lahayd qabiil meeshay qabiil ka hadli lahaayeen maalintay la sameeyey oo dadka la hadleen turki bay tageenba qaarkood iyo down street marka waxaan wax u baahan tahay lafagurid marka dadweynahan weydiinaynaa
arrinta arrin caadi ma ka warrama jimcaha dadweynuhu kuma soo koobi karna hadda 20 daqiiqo kale waa haysanaa waa sii weydiin karnaa laakiin aniga waxay kula ficlaan lahayd arrintan waxay u baahan tahay waqti dheer oo kale maxaa yeelay wuxuu aqoonyahanku sheegayo waaba haynaaba waana arrin u baahan odoros marka dhalinyaradan iska qabiil aan jirin haddaa run rabtaa ninkan farmaajo isku cid yihiin marka waxaydan ka warqabin lama galo lama mala awaalo waxa waa la sugaa see u taageeraysaan dowlad haddaa saan tihiinba iska caydina kasoo horreysa iyo been abuurka iyo waxaydan oqoyn aad ka hadlaysaan marka cabdirasaaq bal ku soo noqo horta dadweynaha waxay ku weydiinayaan mawduuc ka baxsan xoogaa arrintii badda maadaama cabdiraxmaan cabdishakuur markaas ahaa wasiirka qorsheynta uu ahaa adigana meelo aad isugu timaadeen hadda sida sacuudiga oo kale arrintaas maxaa ka jira marka arrintaas aniga cabdiraxmaan cabdishakuur waxa igu horeysa aan barto intaanan waddanka gelin abril 2009 aniga may aan galay waddanka waxaan maalin buu isoo wacay aniga isaga aqoon umaanan lahayn waa markuu saxiixayay badda uu nairobi u yimid uu badda saxiixayay hotel wuxuu kusoo degay hilton qof buu ii soo diray ina xasan abshir oo isoo wacay wuxuu yidhi waxaa ku rabay inuu ku arko wasiirka cabdiraxmaan cabdishakuur hotelkaasuu degan yahay telefoonkiisa waa kanaa maalintaasuu rabaa inuu ku arko inaan ku geeyaan rabaa inaad soo baxdo ina xasan abshir yar la yirahdo waayahan yaray waa u tegey anigaase marka rag kale wuxuu yidhi raalli naga noqod aniga isagaan qolka fadhinay wax kale imuusan weydin wuxuu igu yidhi aniga waxaan tegey botswana waa markii ugu horreysaan arkayay botswanaan tegey botswana waxaan magacaaga kasoo maqlay dad badan oo Soomaaliyeed meesha jooga inaad u timid meesha consultancy waan ogaa dadkaas waxay ii sheegeen waxay dhaheen inta qof Soomaaliya meeshan yimid hal nin ayaan waxaan aragnay oo aan qabiil ku shaqeynin la yiraahdo fartaag magacaaga horta saasaan u haystaa saasaan kugu yartay inaan ku barto markaasuu saxiix aniga shakhsiyan aqoon uma lihi badda arrimaha badda shakhsi ka hadli karana ma ihi laakiin waa inuu asaga saxiixay habku u saxiixayna waan la socdaa aniga waxaan qabaa waa la geliyay isaga runtii marka xaqa laga hadlayo kamuusan fiirsan waa shakhsi qab ku jira oo qabiilkana aad ula weyn yahay jaahilnimo badanna hayso marka waa looga faa'iidaystay waa la geliyay inuu saxiixo raq khibraa helay inuu saxiixana shaki kuma jiro arrintaas waa arrin jirto taasna waa mid asaga mar walba u tagana daba soconayso runtii waana ka xumahay in taariikhdiisa saas ku dhamaato ninka odayga waa tahay su'aalaha aan u hayno waqti naguma saamaxay sababta waxa yeelay arrintu waa xasaasi weeye maadaama aan wax qori jiray waa garanaya waa kala aqaanaa akhbaarta saxda ah iyo akhbaarta dadku u baahan yahay runtuna dadka kama naxiso tusaale ayna siinaya cabdishaaq waan la joogaya dib baan u dhigana cabdishaaq waxaan ka dhiganaynaa dadkii baan weli ka aruurinaya akhbaartooda dadku runta ma jecla qofka waxgaradka ahna ama hogaamiye noqon karana akhbaarta uu ka faa'iidaystaa tusaale ayaan siinayaa maadaama bisha ramadaan lagu jiro dagaalkii beder oo qurayshtii caabudu jirtay sanamyada iyo nebigii sallallahu alayhi wasallam oo safar awr u socday oo dagaal u socon mar la isku soo baxay waxaa dhacday saxaabadii akhyaarta ahayd sida cali radiyallahu anhu baa waxaa loo diray isagu wuxuu qaabilsanaa zubayr iyo inay kumaandoosoo kale ahaayeen hortagaan laba wiil oo waxay soo qabteen quraysh biyo u soo doontay mucaskarkii baa la keenay nebigii sallallahu alayhi wasallam oo tukanayay bay marka interrogation bay ku sameeyeen waxbay weydiin waa juqajuqayeen wiilashii waxay dhaheen quraysh baan ka nimid saxaabadii waa garaaceen wiilashii markay runta sheegeen waa la garaacay marka been bay markii dambe sheegeen maxaa yeelay saxaabadan dagaal uma socon quraysh oo ciidankeeda waa tan waxay dadku iska jecel yihiin information khalad in la baxsho ama arrintu sahlanaato maxaa dhacay nebigu markuu salaadu dhammaystay allahu akbar buu ku yidhi dhegaysta baan u dhegaysta wuxuu ku yidhi in sadaqaakum darabtumuhuma war hadday wiilashu idin run sheegaan ma garaacaysaan wain kadabaakum taraktumuhuma hadday been sheegaanna ma iska daynaysaan wuxuu yidhi wallahi wiilashu quraysh bay ka yimaadeen u fiirso si uga faa'iidaystay markaa nebigu hogaamiyaha u dambeeya fiiri yes labadii ciidanka muslimiin diyaar ma ahan awr bay usoo tageen qalab badan ma wataan ciidamadii waa kasoo tageen khatar baa timid run baa timid runta waa la wajahaa lagama lexlexdo nebigu marka wuxuu sameeyey sallallahu hogaamiyu ahaa wiilashii buu u yeeray wuxuu yidhi wiilashaan ciidani kama warqabaan wuxuu yidhi ciidanku waa meeqa quraysh ma naqaan bay dhaheen wiilasha shaqadoodu waxay ahayd
biyo dhaamis iyo cunto karis bay ahayd wuxuu yidhi meeqa geelay qashaan waxay dhaheen 9 ama 10 maalin walba nabigu wuxuu yidhi ciidanka naga soo horjeeda waa 900 ilaa 1000 waa sidii bay noqotay u fiirso nabigu sallallahu alayhi wasallam information oo ka faa'iidaystay arrintan walaalkeen hayo qofkii wax garanaya wax qori jiray waa arrin aad u qiimo badan oo u baahan in laga faa'iidaysto qoliyaha meelahan ku caytamaya oo raba inay been noqoto waxay la mid yihiin saxaabada waxay sameeyeen waana waxa lagu kala ogaado qofka hogaamiyaha saxda ah qofka dadka u hadli kara qofka dadka wacyi gelin kara akhbaaraha wuu kala yaqaanaa marka waxaan idin xuleynaa yani waxaan su'aalahan dib ugu dhigaynaa jamcaha maalinta jamcaha sabti soo gelisa waqtigan oo kale wuxuu sheegay cabdishaaq waa hayaa tusaale ayna siinayaa maanta waxaan soo gelinay war murtiyeedkii maanta markuu dhici rabay sawiradii baan soo gelinay gaar hayo oo leenahay waxaan mar dhow la bilaabayaa war murtiyeedkii dad badan baa waxay soo qoreen waxay dhaheen nama khusaysa shuqul kuma lihin halkaa waxaad garanaysaa war nimankan waa la diidi karaa laakiin nimanku Soomaaliya nimankii xukumo weeye 90% bay Soomaaliya xukumaan waa dhihi kartaa waa khaldan yihiin waa ka soo horjeeda laakiin arrin Soomaali looga hadlayo oo intaas qof isugu timid haddaad tiraahdo muhiim ma ahaan waa waali weeye waan wuxuu sheegayo dadkan saxaafadan la sameeyay beebeenta dhalinyaro qaar baariga oo weyn dhalinyaro ma aha dadka qaar laakiin dhalinyaro u badan yihiin marka idinkama yeelayno idinkuma sii daynayno gaar hay waxaan u sameynay waa basaas waxaan rabaa gaar hay raallo gaar hay oo aan rabaa ummadda inaan u sheego fiiri waa runta dadka tarawixi bay aadayeen ummadda waxa maanta ummadda Soomaaliyeed la hagaagi laada waxa waaye qof baa wuxuusan ogeyn iskaga hadlaayo xukuumad kasta oo jirtana wanaageeda wadataa xumaanteeda wadataa culture dhaqanka Soomaaliyeed waxa naga maqan inaan xoojino wanaaga wixii naga qaldameen aan ka leexano laakiin waxa u malaysaa inaan sida kale u shaqeyno ummadaha adduunka ka na fahmayna oo xalana loo soo fariistanay midaas ayay fahmeen mar walba nooga faa'iideystaan adigii wax garanaya la rabaa in lagu lumiyo nin xun laga dhigo anigoo baabacsan waxba ahayn in shakhsi culus la iga dhigo ummadda Soomaaliyeed soo loo maartay loola dagaalamaya marka dadkan u maleynaya inay xukuumadda difaacayaan I don't think inay xukuumadda difaacayaan xukuumadda ayaga cadow ku ah ayaga baabi'inayo xukuumadda maanta anay dan igu jirtaa xukuumaddan inay jirto anaa maanta raali ka ah shakhsi dan shakhsina ma wato inaan rabo madaxweynaha inaan ka noqdo ama barnaamij uma socdo waxaan rabaa xukuumaddan inay jirto xukuumaddan inay dhamaysato waqtigeeda si ummadda Soomaaliyeed ay system u hesho haddii xataa wax wanaag badan aysan sameynin wax laga dhaxlo waa la helayaa waxaas laga dhaxlaya faa'iido ayay weyn ayay ummadda Soomaaliyeed u noqon doontaa tan ay dadka fahmi laayeen waa midaas marka waxaan rabaa inaan dhaho shakhsiyaad waxa jiro la rabay in la dilo in taasaan rabaa inaan ku xiro in Soomaali ogaato mana rabo inaan ka xishoodo inaan arrintaas sheego waxa la rabaa shakhsiyaadka madaxda noo ah oo maanta goboleedyada joogo arrintan agreement ayay ka mid tahay in Ahmed Madow waxa la rabaa iyo Cabdiweli Gaas in dambiilayaal laga dhigo waxa jiro safiirka noo fadhiyo New York oo Abuukar Baalla la dhaho wuxuu haddadan ka shaqeeyaa in la raadiyo la helo shakhsiyaad ah oo UN-ka joogo sida loo cambaareyn lahaa nimankan si tribunal ka dhigti dad looga dhigo example labada nin ay ku socotana waa Ahmed Madow iyo ninka la yiraahdo Cabdiweli Gaas si fiican hal dhegeysta Soomaaliyeed labada shakhsi la rabana in la dilo Sharif Xasan in la dilaa la rabaa Xaafna in la dilaa la rabaa shakhsiga kale oo la rabo in laga qaado meesha aan la rabin in la dilo waa Awaare Hirshabelle asaga waxa la rabaa maadaama oo NGO ka soo jeeday in hadda waxa lagu maqan yahay qaybihiisa dhan NGO wuxuu sameeyay dhan iyo lacagaha uu ka qaatay meesha iyo inta guri uu ku leeyahay ee Nairobi nin walba qorshe u degan shacbiga Soomaaliyeed taas inay fahmaan waa ummadda Soomaaliyeed dhibaato ku soo socoto qabiilan ka soo baxnay dhibaatan ka soo baxnay dan nooguma wada jirto inaan isdil inta in soo dili karno ay soo dilnay waxa kaliya aan ummadda Soomaaliyeed caawan u sheegaya wax kala ma war xukunkan aan xoojino war xukuumadaha aan leenahay regions aan xoojino war aan ismaqalno war dadkeena wax garanayo oo qurbaha joogo oo wax garadka ah ha loo yeero war xisaabtanka ha la xoojiyo xisaabtanka maaha in dawladnimada lagu ridayo xisaabtanka waa caafimaad waa mid cid shakhsi walba u baahan
wadamada aad ku wada nool nahay oo dhan waa la wada xisaabtamaa maanta waddanka aan ku noolahay Canada prime minister waxa ka Trudeau aad baa loo jecel yahay laakiin ma jifta habeenkii maalin walba xumaantiisa la raadiyaa qaladaadkiisa marka ummadda Soomaaliyeed inay faantaa waa in laga gaashamaan shakhsiyaadkaas la rabay in la dilo oo xukuumadda loo sameeyo iyo safiirka noo jooga New York oo iyo shakhsiyaad waxa jiro Nairobi ku nool oo Mareyxaan oo ganacsatayaal ah oo lacag loo dhiibay oo ka shaqeynaya Axmed Madoowe sida in dagaal laga rido Jubbaland si Mareyxaan iyo Axmed Madoowe iskugu dhacaan Axmed Madoowe looga dhigo nin waxa lagu kiciyay jareerti waxa lagu kiciyay Sheekhashi waxa lagu kiciyay Mareyxaankii siyaasadda meesha ka socoto Axmed Madoowe hadii la rabo in meesha laga qaado siyaabo badan looga qaadi karaa laakiin saan in looga qaado ana waxaan u arkaa wax qaldan shakhsiyaadkaas Mareyxaanka oo lacagaha loo dhiibay oo farmaajo u dhiibay iyo nimanka cadaan ka shaqeeyna shakhsiyaadkaas magacyadooda waa haya reportkii ku soo bixi doonta marka Soomaaliya kii qabiil u jiran iyo kii xaq u jiran hadda Soomaaliya hadii kala baxaysa laakiin waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa Soomaaliya cadaalad ka shaqeeya intaad awood leedahay waddankan gacanteenu ka baxay hebelan nacbaha iyo qabiilkaas anahay Soomaaliya meel waa ku gaari weysay dhul weyn aan leenahay dhulkeena waa qani waana loo tashtay aan dib u fiirino dhibaatadan haysato aan xisaabtanno daawadayaal waa showgi gaar haye oo idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada London waxa idin la socodsiinaya anigu Cabdulwaaxid Khaliif waxa isku soo dabraday ustaad Muxiidiin Diriir Nuur wadani oo Kanada jooga waa showgi gaar haye waa gole gacalka Soomaaliyeed gees kasta oo ay adduunka joogaan u gudboon yihiin dawladda guna kama qaadano gacan saarna lama leeyin mucaaradka cid gooniyahan uma adeegno fikirka waa lagu kala gedsinaan karaa laakiin danta guud waa mid dooriya ayaan gabagabada hadalku waa aan ku garawnay gaar haye geeyiga ilaali anagu hadalkaas aan ka dhabaynaynaa arrimahan waxba ka jira already marka saad uga faa'iideystaan agreementigan leeyahay non disclosure agreement iyo arrinta xalane iyo nimankan hadda waa lagu bilaabo wuxuu sheegay aqoonyahanku hal xabba khalad kama soo far dhalinyaradan dacaayadan beenta la wado oo lacag baa la cafinaya Axmed Madoowe lagu kiciyay gaas wixiisii nimankii waddanka kale inta badan haystay oo laga dhigay waxaan mas'uul ahayn dib u heshiintii bay ka soo horjeedaa waxaan dhalinyaradan mana ku sii daynayno dadka waxaan meesha u nimanna oo lacag uu siinay hadduu sheegay lacag baa la wada siiyaa marka waxaad samaysaan Soomaaliya markii la soo tukado jamcaha 9:00 fiidnimo soo fariista arrimuhu ka hadlayo waa arrimo xasaasiya naftayda khatar aan ku gelinaa ani asagaba laakiin horaan u samayn jirnay waxaan ugu cusub ma ahan soo fariista isgaarsiiya qolihiinan meelaha la ordaya oo yani soo programiyeen iska fariista meel fartaagi aniga iyo ma ahan dadka arki jirteen iyo ma ahan meel iska fariista insha Allah ma nasiin kartaa jamcaha hadda kale ka waran markay ku tahay 2:00 aqooyin waqsiin waa insiinay jamcaha سفيان بس واعي من هلكان كل جينا واحد شيء تحبك انت اصلا حد واهينا ارنتي marka ilaahay ha sahlo anagu waxaan u baahanaa dib heshiisiin waxaan dacaayadahan iyo madaxdan waddan kala bar haysto iska caayay waxaas dan noogu ma jirto waa inaanu ka hortagno waqti baanu gelinay intaas soo aanu ka hadlaynay wixii waa lagu cayaaray marka waxaan idin ogeysiinaynaa jamcaha Soomaaliya Afrikada bari markay ka tahay 9:00 fiidnimo waa marka taraawixda la soo dhameysto qof walba gaar hayo ku soo taxan isgaarsiiya arrimahaas xasaasiga ah ee dadkaas wuxuu hadda taxayay arrintan laga saxay uu leeyahay madaxweynaha laga saxay oo qodobka ah dhalinyaradan iyo dacaayadahan iyo saxaafadan iyo lacag baa la cafinayaa iyo been aan jirin iyo arrintii calanka iyo dacaayada lagu bilaabay maamul goboleedka iyo waxaas oo dhan waxaad wayba socdaan ba already waaba socdaan marka laakiin dabaqabash waddanku leeyahay jamcaha markay ka tahay Soomaaliya 9:00 halkaan aan isugu nimaadno wax noo haray ma leh aan ka ahayn aqoonyahanka iyo adinkaba inaan idinku dhahno Ramadaan Kariim saas ayna ka tagnaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Ramadaan Kariim